السلام عليكم magacayga waxa la dhahaa Safiya oo ku soo dhawaada San Cooking maanta waxaan rabaa inaan ila share gareeyo haduu Ilaahay yiraahdo bariis on chicken aan ku dhex karinayo isku karis ah waxa dhan waa isku dhex karinayna haduu Ilaahay yiraahdo waxaan u baahanahay waa intaanayto waxa waaye halka waxaan ku haystaa chickenka any kind of chicken ay use gareyn kartaa kan kali ma ahan asoo kala noocyo kala badan uu leeyahay bad kan waxa waaye kii lugta dhaadheera oo haduu Ilaahay yiraahdo inta waxaan ku haystaa adiga 5 koob oo bariis ah waxay ku xiran tahay qiyaasta dadkaaga haduu Ilaahay yiraahdo inta waxaan ku haystaa coconut milk af Soomaali waxa waaye caanaha naarijinta insha Allah oo hal daasad ah inta waxaan ku haystaa basal yaanyo shiishid yaanyo miroleyda ah يعني شيشيده waxaan isticmaalay koobkiisa waaye koob dhan ma ahan waa halfkiisa oo kana iyo saliidana waa kan asagana waa halfkiisa haduu Ilaahay yiraahdo oo saliida waxaan kala u baahanahay xawaajiyada marka laaziman ma ahan waxaan xawaajina haysatid haduu Ilaahay yiraahdo inta alla inta heli karto ayaad ku subsan kartaa haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah kana waxa waaye xawaaji dhudhub asagana marka intaana u baahan haduu Ilaahay yiraahdo iyo biyahana waan ii sheegaya qiyaasta markaan biyaha galno haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah waan isku karinayaa all of them marka insha Allah hadan ma sha Allah waa kana digsigan aan ku karsanayaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku shubanayaa maxaa la dhahaa ma tumaayo isagoo sana only waxaan ku suubinaa waan dubayaa only isagoo saanan dubayaa saliidan ku shubaya haduu Ilaahay yiraahdo ana saliidan baan ku dubayaa saliida markaan wax yar ku dubo basasha ayaan ku darayaa chickenka waan ka dhex bixin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo kuma karinayo only waxaan u baahanahay inuu dhacaankiisa inuu ku dhalo oo maxaa la dhahaa oo dhacaan fiican yeesho sugada markaan kariyo on biyeynaya ayaan ka bixinayaa chickenka haduu Ilaahay yiraahdo markuu xoogaa ku karo insha Allah kana chickenki aan ku darayaa marka insha Allah waan daboolayaa ilaa adiga 10 minutes insha Allah ayaan gadgadinayaa marka kadib ayaan yaanyada iyo khudaarta kala ku darayaa waa soo noqonaya insha Allah marka waa kana ma sha Allah waxay u saaran yahay haduu Ilaahay yiraahdo inta ugu shiilaya hadda waxaan ku darayaa marka khudaar haduu Ilaahay yiraahdo yaanyadii shiishidi insha Allah yaanyada inta ku jajabayso ee ka shiilmanayso ayaan la daboolayaa haduu Ilaahay yiraahdo marka kadib ayaan ku darayaa khudaarta aan ku darayaa khudaartii aan dhihina xawaajiyaashan ku darayaa haduu Ilaahay yiraahdo waxa la socota chickenka markuu uu ku karo haduu Ilaahay yiraahdo ayaan ka dhex bixinayaa chickenka bariiska kuma dhex karinayo aditaan moormanidan daboolaya ilaa yaanyada intay ka qaleysmanayso marka kadib aan hadana suubinayaa haduu Ilaahay xawaajiyaashii waxa ku daraa insha Allah ما شاء الله واتنا سوغا دبكينا u gaabisid ayaa fiican si maxaa la dhahaa u shilmato haduu Ilaahay yiraahdo dabka aadada ugu shidid way ka gubanaysaa hadda saasay ku soo baxday haduu Ilaahay yiraahdo hadda waxaan ku darayaa xawaajiyaashii
xawaajiyaasha dhan aan ku dhex darayaa. maasha allah suugadii waa tanaa. biyaan ku darayaa hadda sida uu chickenkana uu u karo, dhacaankana chickenka uu igu baxo oon bariiska aan ugu darsado hadduu ilaahay yiraahdo. inta waxaan ku haystaa 4 koob oo biyo ah. 4 koob oo biyo ah. marka insha allah 4taas koob aan ku dhex darayaa. si uu ugu karo chickenka. maraqana iigu dhalo maasha allah. adi waxaan daboolayaa almost 30 minutes because chickenka inuu karaa fiican. chickenka haduusan kaa karin it's not good, aada u xun yahay. marka insha allah adi ilaa 30 minutes ayaan daboolayaa hadduu ilaahay yiraahdo. markaa kadib biyo kalan ku daray doonaa, laakiin hadda ilaa 30 minutes ayaan daboolayaa si uu u karo. dabkana aad ma ahan, high medium u geynaysa hadduu ilaahay yiraahdo. insha allah asaa karaay. markuu karo ayaan i tusaaya insha allah bariiska aan ka bixinayo chickenka. 30 minutes ayaan daboolayaa. maasha allah waa tanaa 30 minutes ee saarneed. saasay u kartay maasha allah chickenkii. chickenka inuu aada u karaa fiican. that's it. waan ka bixinayaa chickenka hadda hadduu ilaahay yiraahdo. intaan dhigayaa waa because waxaan rabaa inaan shiilo. gooniya u shiilaya hadduu ilaahay yiraahdo. marka hadda waxaan ku darayaa maxaa la dhahaa naarjinka caanihiisi. iyo waxaan ku darayaa 2 koob iyo wax yar oo biyo ah hadduu ilaahay yiraahdo. naarjinka ayaan ku biyo raacinayaa caanihiisi maxaa la dhahaa, iyo 2 koob iyo wax yar oo biyo ah. maasha allah. cusbadiisii iyo wixii dhan wuu qabaa hadduu ilaahay yiraahdo. biyo wax yar markuu soo koro ayaa waxaan ku gadinayaa bariiska. bariiskana waan dhaqay markii hore aan cuntada bilaabay ayuu yaalaa. bariiska wuu dhaqan yahay hadduu ilaahay yiraahdo. insha allah biyaha markay iisoo karaan ayaan ku gadinayaa. that's it. bariiska saasuu ku dhamaaday. waxaa ii haray chickenkana waan shiilayaa hadduu ilaahay yiraahdo. maasha allah waa kanaa biyihii waa ii kareen hadduu ilaahay yiraahdo. hadda waxaan ku shubanayaa bariiskii. waxaan ku darayaa kabsar caleen. kabsar caleenta ma ahan mastiina haysatid insha allah. waxyaroo kabsar caleenaan ku darayaa hadduu ilaahay yiraahdo. dabka ayaan u gaabinayaa. that's it insha allah. adi 10 minutes hadduu ilaahay yiraahdo wuu ku karayaa. that's all. okay maasha allah. hadda waxaan subsanaynaa waxaan shiilayaa chickenkii. saliid kuma daraayo, waxaan ku darayaa badhar yar. saliid haddaa haysatana waa ku darsan kartaa maasha allah, laakiin waxaan ku darayaa gobol yar oo badhar ah. waxaan kaloo ku darayaa soya sauce insha allah. xoogaa soya sauce ah almost adi qaado 2 qaado meelahaas. marka intaasaan ku shiilayaa. xawaajiye waxba kuma daraayo. xawaajigiisii wixiisa wuu qabaa. maxaa la dhahaa badharka wuxuu yeelaa guduudna wuu ka dhigaa markii lagu shiilo
oo maxaa la dhahaa flavor fiican uu yeelayaa taste fiican uu yeelaa hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah markaan shiilaan tusaayadi maasha Allah chickenka waa kana hadda dhinaca kale u gadinayaa uu gaduutay maasha Allah markaas saasuu noqday adinta wuxuu ka saarnaa 4 minute meelahaas dhinaca kalena 4 minute baa sugaya insha Allah kadib waan ka daminayaa dabka that's it saasuu u gaduuta maasha Allah chickenka diyaar uu noo yahay hadda dhinaca kalena saasuu uga gaduutay waan ka bixinayaa maasha Allah wakaas bariiskan kor saaranayna hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah waa isku soo noqonaynaa bariiska markuu dabka nooga dambe maasha Allah bariiski waa kana uu noo karay hadduu ilaahay yiraahdo diyaar waaye saasuu furfur u yahay maasha Allah suu carfaa daaragtid waad yaabaysaa caraftiisa saasuu diyaar ku yahay hadduu ilaahay yiraahdo dabkan ka daminayaa si uu u huuro wasaga dhan u huuro insha Allah maasha Allah maxaa la dhahaa waxaan ugu daray coconut milk-kan waxaan ugu daray waxay tahay inuu flavor u yeelo aad u macaaneynaya raashinka maxaa la dhahaa naarijiinka I don't know waa naarijiin jeclahay maasha Allah I love coconut marka wax walba waa ku darsadaa hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah I hope you guys like it waa isku soo noqonaynaa markaan guro insha Allah hadda waan daboolayaa istiraashaan qaadayaa aan ku daboolayaa si uusan qiiqa ooga bixin marka insha Allah that's it maasha Allah cuntadii waa tanaasaanay ku soo baxday hadduu ilaahay yiraahdo I hope inaad try garaysaan insha Allah meel walba aad joogtaan waxaan leeyahay afur wanaagsan hadday maalin ay tahayna soon wanaagsan insha Allah Ramadan mubaarak meel walba aad joogtaan khayr iyo waxaan iiga tagay barwaaqo haddaa ku cusub tahay subscribe insha Allah haddaa dadkii hore ila socota familka hore ila socda ay tahayna thank you thumbs up hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah mar kale iyo next video I hope inaad create wax yar created yar u baahan tahay get in the kitchen waxa rabtid create gara insha Allah thumbs up salaam alaykum tell me you don't want to test this like thumbs up if you don't like still thumbs up okay subscribe mashallah bye bye شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب